xaqadka si toos ah ugu jirta gabadh goobjoog ahayd markii ninkaas weerarka soo qaaday wiilasha oo hurda sida ay sheegayso walaal soo dhawow sida wax u dhaceen bal nooga waran walaal waan dhawahay maxaan ku dhahay say wax u dhaceen anaga goobjoog u ahayd ina maxaan ku dhahay gurigooga iska hurday dadkooda ogtahay qaybna waxay aadaysaa iskuulkii qaybna maxaan ku dhahay shaqo aadaysaa qaybna maxaan ku dhahay ama shaqo ka soo rawxeen ama iskuulkayba ka baaqdeen Soomaa waan gartay marka guriga laba qof lagaga tagay laba maqsin oo isku xigay kala hurdeen meena isugeen xataa guriga inay labada qof ay wada hurdaan labada wiil ee la dilay hal qol may wada hurdin baad leedahay hal qol meena wada hurdin waan gartay marka maxaan ku dhahay qofka ku soo galay wuxuu ku yiri heblow awey maxaan ku dhahay gabadhii guriga lahayd markaas waxa lagu yiri iskuul ba ku maqantay waa loo wacay markii loo wacay maxaan ku dhahay way wada hadleen wuxuu ku yiri habaryarey aniga hooyadaba yaa maxaan ku dhahay yaa albaabka taagan xageed joogta waxa ku tiri iskuul baa ku maqanay waana imanayaa bay ku tiri waan gartay marka intii gabadhii ku tiri maxaan ku dhahay wuxuu ku yiri wiilku toosiya wuxuu ku yiri albaabku idin xidhnaa iska xidha waan gartay idin furaay iska xidha markii inta uu ku yiri haye wiilkan shaqo lahaay uu kacay sidee shaqada waliba gaadhay khalaas horay shahaagi waxa uu siisay iska bax uu saabanaanka ugu soo baxay sawaab ninkii oo bahal birho garayd iyo mindi labada gamcad ku kala sita markuu ku maxaan ku dhahay uu arkay ninka argagaxay dhowr nabar markuu ka gaarsiiyay khalaas wiilkan uu wareeray una yaabay waxa weeraray iyo wiilkan markuu weydiinayo uu leeyahay qofka ii garaacna alla cid uu yahay iyo meel uu ka socdo muuna garanayna ma fahanti waan gartay markii dambe maxaan ku dhahay wiilkii uu nabarada gaarsiiyay wiilkii banaanka u soo baxay xaq anaga qolka wuxuu u soo carray xaq guriga anaga dabaq qoraan iyo wiilku u soo baxay booliisi wuxuu isiri guriga in la hurdana muuna moodaynin waan gartay wiilkii yaraa inaan yar oo kale taa guriga markaa jiifay oo ina oo 15 jir iyo 14 jir wax saasa ina kii yaraa buu haddana ku noqday ina kii yaraa uu haddana maxaan ku dhahay jiifka maxaan ku dhahay isagoo hurdu bir iyo la dhacay mindi su'aalaan ku weydiiyay walaal ninka wax dilaya isagu ma meeshu degan yahay ma guriga dhow degan yahay ma xataa isku magaalo ma deganin marka albaabka yaa ka furay albaabku wuu furnaa soo isagu sheegay albaabku wuu furnaa iyo inuu furaha isagu wataa anagu ma garanay laakiin wuxuu ku yiri albaabka idin furnaaye iska xidha intuu labada nin ee dhaawaca uu geystay ma mid baa hurtay midna uu soo jeeday haddaan ay khaldanayn ma labadaba iyaga hurdaan buu mid kiciyay waan gartay ومخسنكيسا ugu soo gal kiciye markuu kiciye wuxuu ku yiri albaabka idin furna ana albaabka noo furna wiilkan waxa ma sharaysan wiilkan wajigiisa muuna garanaynin lambar buu weydiisay lambarkii buu wacday lambarkiina qofkii gabadhii guriga lahayd baa gabadhii waxa ku tiri iskuul baa ku jira qof iskuul ku jirana waa garanaysa jaanis ko hayo iska yarta ninkan maxaa sidaa wax xanaajiyay oo uu weerarka u soo qaaday walaal wax aliyo wuxuu ilaa hadda wuxuu dagaalkaas wiilkaas u soo qaaday waa la garan laayay haddii laga tag waayo ina yar oo xaafada kamida oo malaale suuqa maalin hore oo maxaan ku dhahay sanad inay ka soo wareegtaan malaynaya maalin hore is afdhaafeen baa leeyahay sida laga maxaan ku dhahay hadda laga shakisan yahay ma fahanti oo labada midna aan ahayn labadan qof midna ma garanayaan baa kula ninka midkoodna ma garanayaan hadday og yihiin gurigooga markuu dhex socday uu leeyahay telefoon ay garaac sameeyay iska celiyeen midowba hurtay bay iska dhakan ku ciisa min iska celiyeen waan gartay ilaa hadda ma garanayaan wajigiisa ma garanayaan bay ilaa hadda haddaba dad waxa jira balasi wacay gabadhani ag fadhid hadda balasi waxa uu yiri maxaan ku dhahay wiilkii kale ta hurdun ninkii kale ta u noqday kan oo maxaan ku dhahay gabadha foosiya ka qabay waxa jirta dadku waxay leeyihiin labadan qof way cusuriyadeeyeen waxay ka soo jeedaan family-ga foosiya ifko saasay horta ilaahina ka baqday dadkiina media ka hadlow ilaahina idin samaystay ka cabsada قبيل ألا قبيل يا هذا نوضه الرسالة النكاس قبيل ألا قبيل ياي والله أنا قلا تجارب كل حين هنا أنا قبيل هاي كنا هنا أنا قبيل هاي ما فهمتي لكن حتى إن لقاها الله ونفسه إن النكاس قبيل ألا قبيل يا اللي بدأ ويلو الدنيا وتجلس إسكت قبيل كذا وتجلس حتى إلا هذين المجالات كان حقوني ولا يجوجيا لبدا ويل مكان لحد بكسور ربيع وأقول أنا وكان بندقنا ها labada wiil mid kamid ah wuxuu ka soo horjeedaa labada wiil waxaan maqlay labada wiil mid kamid ah boorama uu ka soo jeedaa way boorama ka soo jeed labada wiil gobolka bay ka soo jeedaan dalkii hargeysa laga soo jeedaa xagee laga soo jeedina waan gartay may wadadyo waxa fidinaya iyagu hargeysa labada ka soo jeedaan miya
أنا مالي كسر جيران دتك هالكن بسكوت برتاري مالي كسر جيران مقالي هبل بكسر جيران ما ضحية لكن واحد كوي دتك الجار كي أنا قاعد الجار كي إيه دبعته تقالي إننا واحد دبعته أيننا جيسنا أيننا كنا أيننا وركين تعس أنا نقول عضينية haddaba waxaa la yidhi dhowr jeer oo hore dacwada ka gudbiyey waa siday dadku leeyihiin dacwad ka gudbiyey dacwado hore booliska yaalay arrimahaas wiilashan iminka yimaad mise way ku cusbeen waddanka هذا يبي مادين هل سنة بتشون قارم بوليسية محاكو ده هاي دعوة اللي قبضي قارم بوليس كل شيء العكس بوليس كمان بوليس محاكو ده يدين ككل يدين شقية مسوي بوليس وشقية محاكو ده هاي إن وضعك يدولة ده وشقية iyaga markaad wareysatay maxaa isku afbadhaaftaan ma tiri oo wax ma kuu sheegaan ما بيقنا وجهي سما بقرنا يعني يا من الدليل بكليهم بيان الدليل نكن الدليل ما قرنا يا جماعة بدك ويدينا يا الباب كصفري بلي وي بيا بيهم بي نكن ما قلت هذا قرنا يعني بلانت سقرنا يا يا قبل ده قال لا يسكع إلا سما waan gartay iminka xaaladooda waa sidee labada wiil محاتري iminka xaaladooda caafimaad waa sidee بلايا مقام وين عاصمات قام وحي قال له كسر بكسر محاكو ده هاي نبت حق دروني إلهي وقدي الحمد لله بلايا مقام قبيل كلا قش كنا ماشي ما بيعلم وح قبيل ليه أو هالك يعلم والله اسكو ما حراني نجاز بكتر walaalay aan su'aalku weydiiyo muuqaalka uu ninku soo duubay ee baraha bulshada ku baahiyay isagoo dhiikada ayo wuxuu lahaa waa la kalafay waa la cusuriyeeyay dalkii baan uga soo cararay halkana waa laga daban yimi arrimahaas soo warata adee hal mid ku su'aalaya adigoo hurdo haduu ninku dilo oo soo galay maxaan ku dhahay inta soo galay TikTok uu yiraahdo ninkaas maxaan ku dhahay iska soo celiyo ku dilasay maxaa dareemi leedahay adigu waa arinaad loola yaabo oo qofku ku dilayna xataa wajigiisa aad magaalada ka qod adi maxaa dareemi leedahay ilaahay oo kugu dhaariyo wallahi waa arin aad iyo aad loola yaabo qof aanad garanay wuxuu ku dilay laakiin dadkii baan aamineyn oo waxay leeyihiin ninkan waa la cusuriyeeyay ilaahay samaysta ka baqa oo ilaahay ka baqa ninka iyo labada wiil ee maxaan ku dhahay jiifka lagu gaaday midkoodna wallahi inayna aqoon inayna warna iska haynin gabadha ila fadhina wad wareysan kartaa tan salaada tukana wad wareysan kartaa anagu dad muslimiin aanu labada wiilna ma kala xigaan ma fahanteen labada waa Soomaali weeyaan ma fahanteen laakiin anagu waxaan ku cadaynaya oo wallahi labada wiil ee hurdayna xaq darre lagu diro inay ninka wajigiisa xataa ayna is aqoonin taas anana ku cadaynaya waan gartay adigu margeysad ka soo jeedaa walaalo maanigu maxay igu malays may wadeen ku weydiinaya si bulshadu u fahanto dadka qaar ba qabiil u fahmaya ma yana hargeysa kama soo jeedo waan gartay gobolka ka soo jeedaa أنا شو كسرتين. وان قرت خالد هاي فاهمين تلك قابل مودي أنا ذو قرابة كيلة سامة قبيلات كتاجرش. أنا مركو هرا مكوشة مركو ورئيس قال بالله بسام حكورك كواحد دلينا مي كوا للدلمية ماشي محكورة لقود دلينا مي. إدي فاهم كرتان لو قديد ويفهم كرتان ما فهمت. أنا كل كسرت هذا عندنا ناس كما قرني. لكن واحد قوه بقى إنه ويلكس حق ويلشها محكورة هاي ماشي وردينا خضر لقود دلينا. gabadhii albaabka ka furteen waata gurigan aniga lahaa aniga aan dadka carruurteedina ku jireen ma fahanti waa gartay marka dadka wax faafinaya daahir cali sawir waxa diga gaarsiisaa ilaahay ku samaystay ka baqday waxaan arkay isagoo leh 6 qof ay soo tagto laba kurka ka jiray maxaa ku dhahay helicopter baa lagu qaaday balaayo aad raadinayso dad baad leedahay ehel baad leedahay ilmo leedahay ilaahay ku samaystay ka waxa uu yiri waxa kale uu yiri labada wiil ee la dilay habar jecel weey labada wiil qoladooda mid garanaysa ma yaana qabiilkooda ma kala garanay saaqinayn baan aqaan waan gartay ugu dambeyn dadkan arrimaha beenta baahinaya ama aaminsan in la cusuriyeeday maxaad ugu baaqaysaa waxaan ugu baaqayaa waxa la yiri qof maxaan ku dhahay hashi geel diday hashi geel cuntay baa cabaadalay ma fahanti waan gartay waa isagii wax laayay ayuun baa haddana cunsurinimo sheeganaya qof dad calooshiisa ku jirtay ma fahantay waan gartay dan orodayna run ma gaadho laakiin anu waxaan ku sheegayaa ninkaas inuu dulmiilo ahaa dad hurda uu u yimid dadkaas uu laayina siima wiilka yar iska badaada ninka weyna xataa uu dilay ninka uu dilay hadduu og yahay inuu qof cadow oo isaga dhibaatada gurigiisa ya أنا أنت جورجي سكول بجيس وفرسانة كول بميس فرسانة يا مكورس فرسانة يهرد كسر كتنا مونا محاكو هاي مونا فديه ما فهمت وقت أنت هصو محاكو نبرين مونا جارين ما بحيسه وهذا شيء إنه كان نيكي ولا سودا يبى لا يري أرتها والمقايسة أنا
أنا ورك معي إلا سوداي حرق أنا مركو سو هالشيء أكون أحكي ماشي الله يفتولها محاكل البوليس كما هي وأنا أركي هذا أنا ورك معي هادو حنوسنا يقول كاسم مسكحية نو حنوسية دوا هالكذا هادو يسوق بالود لا بالود يسوق كصوت استنا وهالكذا لكن وحكوه بقى wax mashaakil oo guriga nagan wiilka ka gaaray ama aqoon oo guriga naga maxaa ku isleeyihiin malaha